hawshaasaan maqlay maxaa ka jira kusii lahaa way jirtaa maxaad ka bedeli kartaa يا way jirtaa maxaad ka bedeli kartaa وكوسوي والله فريد فرحان فرح سوا كله إلهي بقى قريتي ما شاء الله تبارك الله هيا markaana lacagtan yar baan idin wadaa alaabtiina waan idin dalbay guri raadsada idinku istajiya wadanku waa wadankaad weligiin joogteen luqadiisa waa taqaanaan idinku istajiya dibadejin samaysta anigu waan baxaya waxaad u baxaysaa naagtiidan guursadaan u tegayaa de ما شاء الله هيا oo saad ugu tagtaa adigoo na dejin waan tegayaa tegi mayso waan tegayaa intaan soo kacay oo halkaa kalarka qabsay haddaad iswaalwaashada gu yiri lacagtan yar aan gacanta ku sitaan la noqonaya markaasaan aabaha iyo lacagtaada iyo waan la noqonayaa intaan halkaa kalarka qabsado feer saa u doonto walahi inaan sanka kugu jebin markaasuu wuxuu yidhi haddaad la dagaalanto way kula dagaalan itaalna waad isku barbar dhacaysaa caruurtiina way joogtaa way ku maqlayaan markaasuu isyar dejiyey walaalkay baan wacay markaasaan kula dhegeyso walaa ninkii naag buu guursaday isagoo na dejina wuxuu rabaa inuu baxo naagtii tago markaasuu yiri iigu dhiib aan ugu dhiibo wuxuu yiri waxaad samaysaa gabadha horta lacagtaada gacanta ku hayso u dhiib banaankana u baxo banaanka igula hadal adiguna istajiyo kalarkiisa sii daa buu igu yiri kalarkiisa baan sii daayay lacagtii buu dhigay banaanka u baxay walaalkay way wada hadleen walaalkay wuxuu ku yiri anigu waan baxayaa alaabtiina waan u dalbay guriga waa inay iyagu degaan oo dibdejin iyagu ay samaystaan waa xilligii koroonaha meel kasta uu xidhay xafiis kasta uu xidhay anigu waan tegayaa safarkayga inaan ka baaqdo wuxuu yiri tigirkaaga kansal oo bedelo oo iyaga reerka deji marka hore inaan tigirkayga kansalo oon bedesho oo aan safarkayga ka baaqdo waxa iiga fudud inaan iyada furo يا inaan tigirkayga bedelo oon tigirkayga kansalo oon safarkayga baajiyo waxa iiga fudud inaan iyada furo iyada inaan furayo ha adkaatay walaalkay uu la soo hadlay wuxuu yiri ninkii saasuu yiri warqadaadu kaaga qaada sankor may walaal ha iga qaadin يا maxaan maqlay ها waxaad maqashay waxaan ku yiri wuxuu yiri walaalkay intuu la soo hadlay walaal ninkii wuxuu ku yiri inaan furo ayaa iiga fudud inaan safarkayga baajiyo ninka warqadan kaaga sabtaan kor may walaal may ha iga soo qaad ma tuura guys may anturo ya tuuri haye sheekada waxaan rabnaa in ogaano meesha ku dhamaato haddaba wuxuu intaa ka dambaysa waa cadho haye may baan ku yiri walaal ha iga qaadin warqad markaasuu yiri okay waay cabdilqaadirow waxaan ku yiri waxaad samaysaa gurigii tigirkii markaa uu baxaya laakiin weli ma dhowo tigirkiisi xoogaa baa ka harsan waxaan ku yiri maalin baa waxaan ku yiri waxaad samaysaa gabadh baad guursatay aniga maxaa ii qorshaysan maxaad aniga ii qorshaysan gabadha marka lala guursado masaartir baa la siiyaa madaxaa loo dejiyaa waa lala hadlaa maxaan haystaa masaartir xagaan ka keenaya maxaan haystaa ma haystaa masaartir adaa raadinayaba anaa raadinaya royal hablaha la soo raadsaday maxaan haystaa adiga xaggaad u foolxum tahay meel nooma foolxumiya quruxdaan leeyahay sidaan u eekahay ilaahay bayaab kuu keenaya baabuurta waddada markay marsa saasay isugu dhaca markaasaa qiiq ka kaca quruxdaan u eekay sida ilaahay ii abuuray laakiin kuma aamino gabadhan qurux badan ay leedahay haye wax gabadh Soomaalida foolxum baa xagad ku aragtay adigu daadna waxa dhacday xagaan ka keena lacag ma hayo ayadu ma Soomaali ma miya haye maalintan baan haddana waxaan ku yiri waxaad samaysaa amnda xaaskaagii baan ahay oo xaq baan kugu leeyahay oo walaal waxa weeyaan gabadhaadii baan ahay oo intaasoo dhan 3 sano ayaynu kala maqnayn hadda aad halkan joogta anaan xaggaa joogay caruurta miyayna intaanu ka tagno hal habeen xitaa mayna hotel kareysano ha waay anigu waxaan u baahanahay taleefon kale weliba waan u xiisay waxaan u baahanahay inaan taleefon qabto yiri
wuxuu ku yiri ma karayo waxa waa laga weynaaday niyo waxa waa laga weynaaday sheekada jilicsan noola iman يا waa laga weynaaday waxa waa laga weynaaday niyo sheekada jilicsan noola iman أبو ما كانوا حمر كحد عن أبو أنا إيجاركي منك أوقاتك يا مريض cabdilqaadir oo iska tegey show gabadha tan wuxuu ku yiri naag ma qabo habeenkii oo dhan taleefanka ugu jirto ilaalinayso meel kastuu marayo iyo meel kastuu socdo la socoto ma rabo uu waqtiga gabadhan inuu ku ciyaaro jaaniska inuu beer dareeyo aniga igu beer dareeyo okay maalintii dambe aan israacnay anagoo gaari wada saaran xoogaa wada hadalnay laba caruur oo dhalna nala saarnayd caruurtan ku wada hadli meelaan ku wuri gurigii waan dhignay caruurtii waan dhaqaaqnay meel meesha basasku ka baxaan ayaan hadal deyn maayo intaan waan hadlay aniga maxaad ii qorshaysay anigu xaaskaagii baan hay anigu qoftaadii baan hay anigu caruurtaadii way anoo la hadlaya ayaa basoo istaagay baskii markuu dhaqaaqayo iga raacay baskii يا baskii oo dhinaca أضد الظلمية anoo daldalmaya ayuu baskii dhinaca qabsaday بصل أنت صبحها may ها hadalkayganba ma rababa uu hawadaas isla maraya ساعة بقولك ورقتي هاي حباب hadalkaygaba ma doonayo uu hawadaas isla maraya هاي cabdilqaadir wuu baxay safarkii buu tegey guri yar buu horta noo soo kireeyey guriga isagaa ku qoran alaabtii buu dalbay alaabtii noo iman ayuu naga tegey wuxuu tegey wadankii gabadha uu ka guursanayo wadamadan yurubta soo gala ah ayuu tegey oo gabadhii ku guursanayey wuxuu sii qaaday hadiyada ugu qaalisanaa halkan kasii qaaday anigu waxaan wataa taleefon yaroo neecla ah caruurtayada hal midoo taleefon wataa ma jiro wuxuu sii qaaday iPhone 2 alif markaa soo baxay ayuu gabadhii sii qaaday hoteelada ugu qaalisanaa Star Plus buu u googlay xafladii adduunka ugu qaalisanayd buu u dhigay arooska uu u dhigay lagamaba sheekayn karayaba markaas intii la duubay gabadhii TikTok saa ugu soo daadsay markaasaa la soo diray يا TikTok aroosku de wuxuu ahaa arooskii qarniga wuxuu u dhigay arooskii qarniga markaasaa hadiyadaha markaas wuxuu guddoonsiinayo markaasaa iPhone 2 alifko markaa soo baxay oo saa loogu yaaciyo markaasaa wixiiba TikTok saa soo dhigtay gabadhii markaasaa la soo diray هاي arooskii wixii la soo dhigay caruurteeda waxay دريمسا قياسي ما دريمسا مرق maxaa dareemaysaa cabdiqaadir oo xaalad way adag tahay guri yar buu noo soo kireeyay xagga sare ah alaab wuxuu noo dalbay culus fadhiga uu noo dalbay waxa qaadi karaya 15 qof in isla qaado maaha lama saari karayo sariirta ugu qolka ii dalbay uu ii dhigay waa sariir nafar iyo bar waliba ku kooban hal qof loogu talagalay xitaa sariir laba nafar ah mustaqbalka markuu yimaado igula seexdo xitaa muu dhigay ويا كل سيحنا يباس سويسي xitaa sariir لبنا فرح تاعي موسى أو لبنا نفق الله يبشدا وليدكو والدنا يجا لبنا نفر يلا يبشدا وي ولا يكون نفر ليس أو نفر كخدع يا ولي ما أركين قبل يدير هذه السنة لبنا نفرين لو يبيو منك يوم ما هو هاي سوا كوسع cabdilqaadir caruurta inamada yar waxay dhahaan hooyo aaba muxuu inooga tego alaabta inoola dhig waa inoo dejin waayo masaan ku dhaho hooyo shaqo ku maqan yahay markaasay dhahaan xaguu shaqo wuxuu aaday dhakhtar buu aaday timuhu soo beeranaya markaasay hooyo dhakhtarku miyuu ka cararayaa balanta muu dib u dhigto inagu ina dejin lahaa markaasaan ku dhaho hooyo tigidhka muu haysan lacagu hadhow tigidh kale ku goosto tigidhkiisa waqtigan ahaa caruurtii waan ka maslaxaya horta caruurta naftirkoodeedii guri ka maslaxa deetana wuxuu nooga sii tegay wax lacaga wuxuu yidhi dowladda ka qaado dowladda tag xafiisyada dowladda tag dowladda iska dhiib dowladda cayd ku siinaysa war dowladdu
war dowladdu adigoo shaqeeya lacagii ma siinaysa caydi ma siinaysa waxay siinayaan halkii ilmaba $100 halkii ilmaba $100 naguma filne haddaad doonaysid inaan dowladda iska dhiiboon cawd ka qaato ifur wuxuu nooga sii tegey wuxuu yidhi kaadhkayga nin baan u dhiibayaa kuu dhiibi maayo adiga kuga aamini maayo kaadhkayga lacagtu iigu soo dhacayso nin baan u dhiibayaa gabadhii aan la joognay ninkeeda ayaa idiin keenaya lacag 400 oo eero ah ayaa bishii laydin keenay 400 eero bishii noloshiina ku dibirta bal waxaan idinku eegay yaabkan eegaya ama kaabkan haye waxaan sugnaabaa hadda haye xafiisyadii dowladdu way wada xidhan yihiin meelaan tegayo meelaan caawimo weydiisanayo iyo meelaan u dhaqaaqayaa ma jirto waa xilligii waddanku wada xidhnaa lacagtan yari nolosha carruurtaba kuma filna gaajadii aanu ku dareennay Kenya mid ka daran baan halkan ku dareennay waddan qaboobaa markaad ku gaajooto waxaan haystaa waa kuraydu waxaa jirta xilli la yiraahdo sindheer oo ay cuntada caadiga normaalka cunto ka badan ay u baahan yihiin ana dhirgin haddii aan halkii joogno oo uu leeyahay ilmaha yar carruurta mid ka mida hooyo sidan waan ku gaajoonnay noloshani waa sidee uu leeyahay ilmihii yaraa cabdiqaadirow ayuu soo laabtay markuu soo laabtay arooskii uu ka soo laabtay nooma imane guri iska abulo intuu kireystay ayuu seexday waan daalanahay halkaasaan tegay gurigaasan seexday anigu waan sugaya waayo waa ninkaygii ma sii unsatay waan sii unsaday ma ka gubatay meel aan laga guban jirin may kamaan guban ma cilaan baa saaratay